waxaan ku soo dhaweynayaa hadda ustaad Sheekh Cali Xaydar oo kalimaad kooban inaga oran doona halkan soo dhawaada ustaadku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ضيوف الكرام، علماء الأفاضل، الأساتذة الفضلاء، آباء والأمهات، جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بالله بما سن سبحانه وتعالى عليه اسكو كان ميشان بركيسن أنغو اسكو نماني وحل اسكو إمادو وحا ugu khayrka badan waa weynaynta sharfida xurmaynta iyo kor u qaadid lagu sameeyo quraanka iyo kalaamka rabbi subhanahu jalla fi ula. runahantii waxa mudan oo wanaagsan oo ajr iyo khayr fara badan ka dhargay qofkii intaas niyeysta oo ku fadhiya ama fadhiga ku imaaday. waxa way wax la heli karo maahan, waa sharaf aad iyo aad ayaan u dareemeynaa sharaf inaanu ka soo qayb galno xalfadan lagu karaamaynayo lagu weyneynayo ahlul quraanka iyo ilmaha yaryarka ah ee maantay meeshan ka qalin jabinaya ama quraankii kariimka ah dhameeyay lagu karaamaynayo. waa sharaf iyo karaamo ayay noo tahay, annaga ayay macnaha dareemayno intaas iyo in ka badan. waxaan aad iyo aad bogaadin u jeedinayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay labada qaybood ee maanta meeshan fadhisa ama xafladan loo dhigay oo qaybta farbarka ah. waxa ugu horeeya ay yahay quraanka qofkii aan farta baranin run ahaantii waad fahmi kartaan inuusan waxba aayad kale iyo meel kale uusan hore u socon karin. waxay dhahaan Soomaalidu aayadii alfaxmaala ka halowda baqara kama toosto soma. marka maanta alfaxmaalihi iyo macnaha farbarkii qofkii bartay in la soo dhaweeyo la sharfo si quraankii loogu soo dhaweeyo oo u barto quraankii oo dhan waa wax weyn waay. meelo fara badan oo aan ka liidano dhinacayaal fara badan oo u baahan in aad loo boost gareeyo ama loo xoojiyana waa farbarka ugu muhiimsan. maxaa yeelay quraankii ma shaqeyn karo, mana la baran karo, ardaygii ma baran karo hadduusan farbarkii baranin. marka waa bogaadinaya iyo qaybta kale ee run ahaantii xafladda loo dhigay ee ragga iyo gabdhaha iskugu jira ama gabdhaha iyo wiilasha iskugu jira ee quraanka dhameeyay oo kalaamkii rabbi subhanahu wa ta'ala maantay soo dhameeyay ama ka qalin jabinaya xafladan ku qalin jabinaya. aad iyo aadan u bogaadinaya. waxaan sidoo kale bogaadinaynaa markaska ama markas al-Adaala oo run ahaantii iyo macallimiintiisa dhammaan idaariyan iyo macallimiinta labadaba oo juhdi badan iyo macnaha maxaa la dhahayay shaqo badan iyo hawlkarnimo badan geliyay shaqadan iyo ardaydan inay soo qalin jabiso maantay. waa ku amaanan yihiin, waa ku sharfan yihiin. dee waana u jeedaa mirihii ay soo saareen maanta horteenay fadhiyaan. aad iyo aad aan ugu shukri celinaynaa bacda shukri Ilaahi tabaaraka wa tacaala. waxaan sidoo kale ku shukri celinaynaa oo bogaadinaynaa oo marxabaynaynaa waalidiinta qiimaha badan ee sharafta mudan ee run ahaantii sida qiimaha badanna uga soo qayb galay xafladda. haddana intaas oo ardaygu uu daalan dhacay soo waday farbar ka bilaabato ilaa maanta oo quraankii uu dhameeyay ama xafiday waxa waaye shaqo adag waaye. waxa fahmi kara qofkii waalid ah ama ay ilmo macnaha ay u joogan ayaa fahmi kara.
waxaan kaloo sidoo kale dareensanahay oo ogsoonahay haddii macallimiinta aysan waalid adag aysan ka dambaynin oo garab taagan oo maalintii xataa uu yara xanuunsado kaniiniga iyo banadolka inta ku soo dhufto hore u socodhahay hadduusan jirin waxaa waaye waxba reecadaala waxba qaban lahayn marka adinkana aad iyo aadaan igu bogaadinaynaa shaqada qiimaha badan aad macnaha aad qabateen aad iyo aadaan u bogaadinaynaa waxaan sidoo kale biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dardaarmaynaa oo macnaha waxaa la yidhaahdaa qur-aanka in la xafido ama la dhammeeyo waxaa ka khatarsan oo ka muhiimsan in la ilaaliyo qur-aanka ardayga in loo ilaaliyo waxaa waaye waa shaqo adag waay waana shaqo badana waalidka u taalla iyo macallimiinta ama communitiga meesha degan waa aad iyo aad shaqo u adag waa tii hore wax ka adag waay badanaa soomaalidu waxay dhahaan qur-aankii waa u dhameeyey aniga maxaa laga rabaa anigu qur-aankii waa u dhameeyey kolleyba xataa kii hallaaba ilaahay ma qadaree waxay dhahaan anigu qur-aanka waa u dhameeyey qur-aankii waa u dhammaystay waa sax macallinkii waa baray waa sax waalidkii waa daba tagnaa intuu qur-aanka dhammaynayo waa sax laakiin ma iska warsannay in aanu qur-aankii aan dhammaynay ama xifdinay ilmihii aanu gacanta ugu hayno waa in la iska warsado waa in shaqo adag waay way ka adagtaa shaqadii hore in qur-aankii la haayo soomaalidii hore iyo markii waddankii iyo dhulkii aanu joognay waxay samayn jireen badanaa subac ayaa la samayn jiray ama subac maalinta jimcada ha la galo oo masaajidada lagu geli jiray iyo meelaha caamka ah oo dadku isku balansan jiray inkastoo dadku u badnaayeen waxaa sidoo kale jiray subaxyo subax walba la geli jiray intaan iskuulka iyo dugsi meelaha kale la aadinayo shaqada ayada laftirkeeda waa qur-aanka lagu hayn jiray waalidkuna waa la daba socon jireen annaguna waa soo gaarnay waqtigaas oo aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waalidiintii na daba taagnaa marka taas iyo in ka badanba waxaana looga baahan yahay inaanu u istaagno oo aan ku dadaalno qur-aanka inaan ilmihii u hayno oo loo daba taagno maalin walba sidii aan ugu dadaalaynay intii uu xifdinayay ama uu macnaha dugsiga iyo malcamada u dhiganayo taasna waa iga dardaaran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu